والله horta aniga hadda arinta waxaan kala socdaa horta aabaheeda nin xanuunsan inuu ahay oo maantana oo dhahayo gabadheeda waan u duceynayaa adeeraasheeda baa fadhiyo meel alla meeshii adeeraasheeda u rabaan idana ay rabto waan ugu duceeyo yiri marka haddana wuxuu leeyahay gabadhii xoog baa liga haystaa waa liga afduubtay ninka afduubtay ma leh xaafad beel meeshii xaafad waaye waa gabadhii marka hore waa laga watay isla habeenkii ayaan u soo celinay 8 saacadood aan ku soo wareejiyay waxa laga watay 8 saacadood aan ku soo wareejiyay hooyada dhashay guriga la keenay kadib waxay dhaheen anaga gabadheena lama qabo waayahay baan ku dhahay haddana waa igu soo laabteen iyagoo socdaan waxay dhaheen gabadhii waa la qabaa inaan nolol furo rabnaa dabadeedna hal dalaaqa loogu furay way diideen mid labaad aan loogu dareeyeen waa loogu furay odiga markii dalaaqooyinka lagu furay meeshuu taagnay hadda gabadheeda lama qabo waa la afduubtay leeyahay horta warka miskeenayo oo hadda la sheegayo aba hatee iyadoo saas uu leeyahay aawadeeda aan wali waxaan leenahay gabadhii markeen saas loogu furay oo dalaaqooyinka la siiyay kadib ay haddana isku laabteen markay isku laabteen odayaal ka mid ah beesha ay la timid habarta oo iyada gabadha ay ka dhalatay shir baan u fariisanay shirkii aabeedna wuu joogay wuxuu ku yiri waan u duceynayaa gabadheeda mar alla markii la soo galiyay aabeeda bay habsiisay waan u duceeyay kadib ma adeerayaashii gabadhii hortooda lagu weeraray dil baa loo geystay way carreen saldhiga ay tageen ciidan bay la yimideen ciidankii la yimideen ayaa foodadii markay sii badatay gabadhii ayay soo baxseen gaariga ayay saarteen odigoo meesha taagan horta meesha taagan dadka xaafadoo dhan meesha taagan gaariga ayay saarteen ayay gabadhii waxay tiri adeer waaba i wadaysaay ninkeyga ii soo saar gaariga toos iyo raacsi sidii ayaa adeerayaashii wiilkii gabadha kala wareegeen xilka way wateen saldhiga ayay geeyeen saldhiga yaqshid taliya carabi baa joogay taliya carabi baa ku shaqalay saldhiga inkastoo nin fiican u yahay ilaahay khayr ha siiyo arintan markii buu yiri haddii si daba dheeraato dil baa dhici doono waa inaan ka hor tagnaa wuu ku dadaalay dadaalkii axmed waa ku bixi doonaa kuley tiisa soo dhamaatay dadaalkii uu baxshay axmed dowlo ninkii saldhiga haystay taliyaha wuu ku mahadsan yahay horta aba ahaatee gabadhii sidii ayaa meesha loogu wareystay ali yiri adeeraashin dhinaca wareysteen ciidankii dhinaca wareysteen in ninkeeda raaci doonto eedada raaca may tiri adeerka raaca may ay ku tiri ninkii raacsiye adeer waa ducan igu dara sidii ay ugu duceeyeen ay ninka ku raacsiiyeen waa israaceen iyaga iyo gabadha iyo wiilkii kadib ayaa waxaa yimid wareer kale oo habarta ay ku duceynayso gabadheeda lama qabay qeyle iyo mar labaad ayaa dhib dhacay saldhiga ayaan tagnay saldhiga intaan tagi kor ayay waxay guriga lagu soo turo warqado oo ay ku qoran tahay hanjabaad oo lagu hanjabaadayo aniga familkayga iyo dadkayga warqadihii ayaa lagu soo tuuray warqadihii maalintii lagu soo tuuray isla markii saldhiga ayaan geeyay warqad ka mid ah waa laga soo qoray waan soo baxay mar labaad ayaa waxaa dhacday isla habeenkii labaad ayaa waxa lagu soo tuuray dhalo shidaal ku jiro oo qarsho ah guriga marka hadda adig haddii aad tihiin reer حالات ماشي مرة ولا صوت مركا عليك سيدا بعد حلك وارد والله إلا حد أنك حل واحد لو يمد ملح هنجبادة ما هنا وحكر عن هينه ولا فيسبوك أنا بدينا نرقصي هنجبادة أيها هينا بس أبني حتى أبني ما هنا ماشي نديرنا يقول له ما دحية نسبوس أنا دحية كلا دير مني وحول بالي شو ذيك سكر حتى inkastoo saas ay tahay ayaan gurigeyga weli aan ku jooga aniga dhibka lii geystay ayaa weli li hanjabaadaya oo weli ka bogsanin dhibka walaalkii loo geystay waxaan dulqaad lahayn ayaa loo geystay anigoo ku sabarsan ayaa weli li hanjabaadaya marka dowladana ilaa hadda kama hayo war suganoo oo lagu kala baxayo dad badan baa ka gaabsanaya erayaasha oo dhibka noola geystay waan aragnaa dowladda hadda farmaajo kale nooma imaanin waxna nama weydiisanin sidoo kale wasaaraha sidoo kale waa dadka dusha kaga jiraan si haddaan aan arkeyno dadkii wax geystay dushay kaga jiraan markee waa laftiisa ilaa haddana kama soo hadlin jawaabna kama hayno marka dhibkaas ayaa noola geystay wax walbana oo dhacay xabsiyada iyo yaalaan warqadahooda inaan 4 mar 5 mar soo damiintay
kadib oo taliyaha uu yiri marka damiin ma jirto maxkamadda ayaa la gudbinaya maxkamadda dhexdeeda ay ka cadeysay in taliyaha naftigiisa oo dadka boolo jiray tir cadaalad ma aha soo agarta ma iyadoo markii garteena loo fadhiyo oo xabsiga soo maraysa dadkan afis weydiiso laga dhaqmo la dhahay ay ku diiday ninkii xeralaaliyaha maxkamadda ay leedahay mar walba uu tuugayo warbal ka fiirso wad gardarantay maya gabadheeda nikaaxi wax lagu qabo male hadii nikaaxi wax lagu qabin markii hore see loogu furay oo labada dalaaq ay kaga qaadatay waaba laga xoogay gabadhii waa lala baxsaday seen marka looga qaatay gabadhii labada dalaaqna ay ku sheegatay oo loo siiyay markaati bay leedahay dad baa joogo xaafadda islaam baan unahay dadka islaamkana in iskhilaafaan waa dhib haddii diiniya jirto waa ina aniga ku qanacsanahay sideeda horta wax walba ilaaha qabta ilaaha aaminsanahay axmed ilaahigii untay ayaa watay kadibna annaga ilaah baa aaminsanahay diinta islaamka waxay qabto in annaga wax noolagu qabto ayaan diyaar u nahay haddii aan noola qaban karin waxaan qaban karna malana la dhaho oo wax walba ilaah baa watay wixii dhici doonne aan isla aragno marka laga soo tago xaaladda iyo kiiska dhinaca kale wiilkii gabadha iyaguna way joogaan wiilkii gabadha horta dawladda ayaa haysata hadda waqti xaadirkan ayaa amnigooda iyo waxooda ku wareegay aniga wiilka dhalay ilaa hadda ma arag inaan ka arko shaashadahaas maahane uma tegin yarkii ila dhashto walaalkii ayaa u tagay abba u tagay aniga waxaan warkaayo male aniga waxaan ogaay inaa dawladda la wareegtay oo telefishinada waxaas ka keen waxay dhahayaan hadda aroos baan u dhigaynaa waxaas oo jirin waaye annaga weli dhibkii oo nolol geystay waxba lagama qabin aroos keli wax ma looma tarayo waa khalad in aroosaan dhigaynaa ka dhaha marka annaga dhibkii nolol geystay ilaa hadda wax nagala hadlay male dawladda nagala hadlin dadkii dileen ka dhashtaan aan arag sidaas aawadeeda ayaan weli u niyo jabannahay annaga aan gurigeena ku joognaa waa khalad waxbaa lagu hoos qarinayaa arooska hadduu dhaco waxbaa lagu hoos qarinayaa aroos ma dhici karo ilaa annaga aan waxa danteena ah oo noola qabanin oo noola geystay dhibkii walaalkay loo geystay oo wax laga qabanin aroos ma dhici karo marka meesha geed baa dhacay dil baa dhacay dilkii in horta wax nalaga qabto iyo wax walba ku qabsan karaa dawladda annaga ina cadaaladda aan aragnaa aan doonaynaa oo diiniya ah dad islaam baan nahay diin baan ku dhalnay isku diin baan nahay inkastoo hadda laba diin oo kale nalaga dhigayo oo jareer baa guursaday kan baa saas yeelay la leeyahay anigu isku mid baan nahay dad hadda oo dhib geystay oo dad xoog wax ku haysan kara aan ahayn waxa xoog wax ku haysan kara ninkii oo madaxdiisa ay sare ay tahay anaga madax sare oo wasaare malini wasaarahana iyagoo xiga maanta marka dawladda haddii cadaalad jirto waa sharciga diinta islaamka wuxuu qabo in loola sameeyo ayaan ku qanacsannahay waxaa talaabo qalcina markuu loo yimaado oo na dhihi lahay halkaas waxaas iyo sabab waxa u dhaceen kuley baan gudagelaynaa bal oo naga tacsiyo guto kadibna oo yiraahdo dadkii wixii sameeyey meesha dawlad baa jirto wax diiniya ah ani lagu qabanaya sharciga diinta islaamka ayaa la marsiinaa doon dhihi lahay waan qancileen ilaa hadda warka ma hayno aamusnaantaas waxaan u aragnaa in asiga dushiisa weli ay ku jiraan oo qarsanayo Soomaaliyeed iyaguna dunida kale idinla socda ee wararka kala duwan wallaahi dadka islaamka meel walba ay joogaan hadal fiican baan ka haynaa dad ka mid ah dadka oo ra'iisul wasaaraha oo ka dhashtay ayaa weli nala caaytamayo mar walba soo fariista Facebook iyo waxaas ayaa khayl iyo dood iyo jireer ma saa yeeli karo jireer weligeena dili jirnay haddii weligeena dili jirtay maalinta dilayso meesha dawlad baa jirto dawladda aan bad ku diri jirto Soomaa dawladda haddii jirto ay cad tahay dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in arrintaas wax ka qabtaan